Ma isweydiisay shanta xabsi ee dunida ugu khatarta badan? Mise ma ogtahay inuu jiro xabsi maxaabiista ay cunaan hilibka maxaabiista kale ee u dhintay cudurrada iyo baahida? Xitaa waxaa jira xabsi aan lahayn meel maxaabiista seexdaan ama ay fadhiistaan oo ay ku dhammaystaan noloshooda iyagoo taagan. Maanta muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa shanta xabsi ee ugu khatarta badan dunida. saaxiib haddii intaan la soo gaartay fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid. Kaalinta shanaad waa Black Dolphin oo ku yaala dalka Ruushka, godka aan laga soo laaban. Waxaan ku bilaabaynaa xabsiga khatarta badan ee Black Dolphin kaas oo ku yaala xadka dalka Ruushka iyo Kazakhstan, halkaas oo lagu xiro dambiilayaasha ugu naxariista daran ee caalamka lagu arkay. Maxaabiista halkan ku jirtu waxay wadarta dileen in ka badan 3,500 oo qof, taasoo ka dhigan in hal maxbuus kasta uu dilay ugu yaraan 5 ama ka badan. Marka maxbuuska qolkiisa laga soo saarayo si loo geeyo meel kale, waxaa indhaha looga xiraa maro madow, waxaana loo laabaa qaabka dolphinka oo ah in gacmaha kor loogu laabo, dhabarka dambena hoos loo foorariyo si uusan marnaba u arkin qariidada xabsiga una ugu fikirin baxsasho. Maxaabiista halkan ku jirta looma ogolo inay fadhiistaan ama ay nastaan 6da subaxnimo ilaa 10ka habeenimo, iyadoo 12 saac ee maalintii ay ilaaliso kaamirado iyo eeyo loo tababaray inay qofka jeexjeexaan haddii uu dhaqaaqo. waxaana xaqiiqo ah in qof kasta oo bartaasi gaara uu ka soo baxa isagoo sanduuq ku jira oo kaliya. Kaalinta afraad waa Arex Florenza oo ku yaala Mareykanka, cadaabta go'doonka. Kaalinta afraad waxaa fadhiya xabsiga Arex Florenza ee dalka Mareykanka, kaas oo loo yaqaano Alcatraz-ka cusub, waana halka lagu xiro argagixisada caalamiga iyo madaxda ugu weyn ee daroogada. Maxaabiista halkan ku jirtu waxay ku jiraan 23 saac oo go'doon buuxa, iyagoo qolkooda ay yihiin kuwa ka samaysan shub ama concrete, oo sariirta iyo miiska iyo kursigu ay yihiin kuwa dhulka ku rakiban oo aan la dhaqaajin karin. Ma jiro wax xiriir ah oo dhexmara maxaabiista iyo askarta, xitaa cuntada waxaa loogu soo dhex tuuraa duleel yar oo albaabka ku yaala, taas oo keento in dadka halkan ku jira ay waashaan muddo yar kadib, sababtoo ah ma jira wax dhaqdhaqaaqa ama muuqaal bini'aadam oo ay arkaan muddo sanado ah, iyadoo qolka loogu talagalay inuu noqdo kuwa xitaa aan laga maqli karin waxa ka dhacaya qolka xiga. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Bangkok, Thailand, silsilada iyo cudurrada. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira xabsiga Bangkok ee dalkaas Thailand, kaas oo loo yaqaano Bangkok Hilton, balse magacaas waa mid lagu maadsanayo rafaadka ka jira dhexdiisa. Maxaabiista halkan ku jira waxaa lagu qasbaa inay xirtaan silsilado bir ah oo lugaha loogu xiro muddo 3 sano ah ee ugu horreeya nolosha xabsiga, taasoo ka dhigaysa socodka iyo dhaqdhaqaaqa mid aad u adag. Ciriiriga ka jira xabsigan ayaa gaarsiisan in hal qof lagu dhex tuuro 50 qof oo kale, kuwaas oo ku qasban inay ku dhex neefsadaan kuleelka iyo nadaafad darrada xad-dhaafka ahna waxa keena cudurrada sida qaaxada iyo bararka lugaha. Haddii aadan qoys kuu keena cuntada haysan ama aadan lacag u dhiiban ilaalada, waxaad u dhimanaysaa nafaqa darro, maadaama cuntada dowladda bixiso ay tahay mid aad u yar oo aan ku filnayn qof bini'aadam ah. Xabsiga kaalinta labaad ku jira waa El Salvador, boqortooyada gacan ku duugliyaasha. Sanadihii ugu dambeeyay, dalka El Salvador wuxuu dhisay xabsiga ugu weyn uguna khatarta badan ee dunida ee loogu talagalay kooxaha gacan ku duugliyaasha ee MS-13 iyo 18 Street, halkaas oo ay ku xiran yihiin in ka badan 40,000 oo xubnood. Sawirro ama tattoos muujinaya dambiyadii ay geysteen. Ma jiraan wax sariiro ah oo yaala gudaha xabsiga, ee maxaabiistu waxay seexdaan dhulka iyagoo isku dheggan ciriiri dartii, waxaana gudaha xabsiga ka jira nidaam adag oo ay maxaabiista dhexdooda isku xukumaan, halka askartu ay ku ilaaliyaan qoryo waaweyn iyagoo jooga bannaanka si ay u toogtaan qof kasta oo isku dayo inuu rabsho kiciyo ama uu baxsado. Kaalinta koowaad waa Gitarama, Rwanda, cadaabta is-cunista. Nambarka koowaad oo ah meesha ugu naxdinta badan caalamka ee looga yeero xabsiga is-cunista waa Gitarama oo ku yaala dalka Rwanda, kaasoo bini'aadanimadu ay dhamaatay. Xabsigan waxaa loogu talagalay in lagu xiro 400 oo qof, laakiin hadda waxaa ku dhex jira in ka badan 7,000 oo maxbuus, kuwaasoo aan haysan meel ay fadhiistaan ama ay seexdaan ciriiri xad-dhaaf dartii. Maxaabiistu way taagan yihiin maalin iyo habeen dhulka, waxaa yaallo biyo wasakh ah iyo saxaro, taas oo keentay lugaha maxaabiista inay baxaan ama ay qurmaan ayagoo nool xanuun dartiis. Tan ugu naxdinta badan ee caalamka ku argagaxay ayaa ah gaajada heerka sare ah ee keenta in maxaabiistu ay cunaan hilibka maxaabiista kale u dhintay cudurrada ama ciriiriga si ay u noolaadaan maalmo kale. Waana xabsiga loo tixgeliya meesha ugu xun ee bini'aadam lagu xiro taariikhda casriga. Sidaad aragtaan, xabsiyadan ma ahan meel dadka lagu soo xayo, waa meel nolosha lagu quusto
sheekadani waxay inoo sheegaysaa hal shay oo ah dambiyada iyo falalka dhiigga leh inay ku horseediyaan meel ka xun dhimashada. Adiga xabsiga waa kugu darnaa. Fadlan nooga reeb fikirkaaga qaybta falada kanaalka subscribe saar, video like saar, noona share garay. Mahadsanid.